السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أسكرية عيسى وكما بعد الحباوي وحنا رمانت إلى كهضنا عشر يرقوما وأدي سوق لسيه هتعلن وحنا قلنا عشر كاس other types نريد التحي دالبشرة انت قيبي وكلا بحضو مركي أجوبتو سوق أونلاين كان فوركس مركي فوركس كده حقين عسلنسو وأد ربطو إناد wax buy gareyso ama aad sell gareyso inta qeyb aad wax order aad u samaysan karto ayaan ka hadlaynaa. Number 1 waxaa weeyaan horta market order, limit entry order, stop entry order. saddexdaas ay aad iyo aad loo isticmaalaa boqolkiiba 90 ilaa 95 haddiisan boqolkiiba boqol ahayn kuwa kale waa la isticmaalaa laakiin inta ugu badan ama dadka caadiga ah oo anaga ah waan isticmaalo sida caadiyan maalinla aan u isticmaalo suuqa intaan ku jirno waa inta market order. haddii aan rabno marka market order wuxuu noqon doonaa ama waxaad ku arki doontaa brokerkaaga wax la yiraahdo execution market. micnaheedu u taagan tahay inaad markaad suuqa aad iibsato ama aad iska iibiso qiimo markaas ku habbo oo micnaheedu ay tahay markaas ayaad rabtaa inaad iibsato ama iska iibiso maadaama qiimaha uu ku habboon yahay isla waqti xaadirkaas la joogo ayaad iibinaysaa ama iska ama iibsanaysaa ama aad iska gadaysaa hadduu alla insha allah. tusaale ahaan haddii aan tusaale ka soo qaadano sicirka qiimaha euro USD wuxuu marayaa 1.1240 ilaa 1.1242 micnaheedu ay tahay 1.1240 waa qiimaha selka 1.1242 waa qiimaha buyga. labada sinti u dhaxaysa waxaa iskale brokerka ayaa commission ahaan u qaadanayo. maadaama uu brokerka commission ahaan u qaadanayo waxaan arki doonaa hadduu alla idmo insha allahu tacaala inaan sameyno wax la yiraahdo markaas market execution inaan ku dalbano hadduu alla idmo. waxaa ka mid ah wax la yiraahdo limit entry order oo isagana uu yahay inaad xadidid order micnaheedu waxaad rabtaa inaad xadidid micnaheedu ma xadidaysid inta shay aad geli karto wax walba ayaad geli kartaa. waxaad geli kartaa akoonkaaga yahay 30 40 20 order ayaad geli kartaa laakiin waxa la xadidayo waxaa weeyaan entry-ga meesha aad ka gelayso suuqa ayaa la yiraahdaa entry. horta meesha aad ka gelayso ayaa xadidaysa. okay laba qayb ayuu kala baxaa limit entry order, buy limit iyo sell limit ayuu kala baxaa. buy limitka waa qiimo aad rabto inaad hoos price-ka ama qiimaha meesha uu marayo hoostiisa inaad kasoo baygarayso kadibna price-ka ama qiimihii u kor soo aado. micnaheedu ay tahay qiimaha inta ayuu joogaa calaamadan bulugta ayuu joogaa kadibna wuxuu rabaa inuu qiimaha kor soo aado hadduu alla idmo insha allah. maadaama qiimaha uu rabo inuu kor soo aado kadib adiga inta ayaad ku register garaynaysaa qiimaha inta ayuu joogaa wuu soo dhici doonaa kadib ayuu kor soo aadi doonaa. sidoo kale sell limit waa isagana waa qiimo aad ku sugayso qaybta sare kadibna qiimihii uu soo aadi doono hoos. micnaheedu ay tahay qiimaha ma rabtid meesha uu hadda uu marayo inaad sell aad taabato market execution aad ku gasho. okay mana rabtid inaad qiimahan uu fursaddan ay kaa tagto mana rabtid inaad markaas gasho. okay maxaa kuu furan opportunity ah? waxaa kuu furan inaad sell limit aad ku register garaysid brokerkaaga inaad ku register garaysid. waan arki doonaa sida loo register garaynayo. waxaa kaloo ka mid ah stop entry order oo micnaheedu ay tahay dalbashada joogsiga
qiimo markaas aad rabto inaad iibsato ama aad iska iibiso suuqa markaas qiimo gaar micneheedu qiimo gaar wax kale uma noqonayo qiimaha waa qiimo aad rabto inaad iskaga iibiso ama aad ku iibsato meel sare ama meel hoose okay micneheedu waxay noqon doontaa dalbashadan joogsiga ah price stopka wuxuu noqon doonaa inuu qiimaha wuxuu joogaa meel hoose haddii qiimaha badan waxaa loo isticmaalaa markii uu ku jiro range suuq range market marka uu jiro oo qiimaha kor hoos uu ku lalaabo maalin saacado dadka badanaa ay ku wareeraan waxaa la sameeyaa buy stop iyo sell stop wax la yidhahdo kadib qiimaha haddii kor uu usoo jibiyo kor ayaad u raacaysaa buy stop ayaad u dhiganaysaa haddii uu hoos usoo jibiyna sell stop ayaad hoos u dhigan doontaa hadduu alla kadibna sidaas ayuu selkaagii ku furi doonaa hadduu alla isagana waa shaqada doona ay sida loo rajist garanayo waxaan rabaa inaan markaan ka hadlo wax la yiraahdo buy limit sell limit buy stop iyo sell stop intooduba sida u shaqeyn doonaan hadduu alla haddii aan ku buy limit iyo sell limit qaabka ugu fudud aad ku samayn kartid waxaa ka mid ah qiimahan euro Canadian Sunday axadii ayaan soo upload oo aan ku fiirinaynin raajacada suuqa wiigan fursadaha ka jira eurocad waxaad aragtaa meelahan ayuu soo marayay markii aan muraajacada sameynayna qiimaha inta qofkii ka geli lahaa buy limit ayuu ku geli jiray okay within 4 hours ayuu ku booday laakiin riski maadaama yahay qofka support trend line markuu haysto wuxuu ku geli karaa isagoo riski yar qaadanayo buy limit micnaheedu ay tahay qiimaha inaad inta ku sugtid inta ayuu soo maraya wuu soo dhacaya inta ayaad ku sugaysaa buy limit ayaad inta u gelaysaa kadib qiimihi kor ayuu aadi doonaa sell limit ayaad inta ku sugaysaa meel sare qiimaha inta ayuu soo maraya ma rabtid inaad inta sell taabatid maadaama uu kor aad uga shakinaysid inuu kor aadi karo sidaas darteed marka meel sare ayaad ku sugaysaa markuu yimaado ayaad geli doontaa badan waxaa loo isticmaalaa markaad mashquulsan tahay ama holo kale aad qabsanayso ayaa la isticmaalaa ka maqan tahay computerka ama mobileka laakiin aadan doonaynin inuu janiska uu ku dhaafo laba goorma maadaama aan la iskakan okay hadda waxaad ku fiirin kartaa inuu hadda inta marayo 1.50 waxaad dhihi kartaa qiimahan waxaan ku sugayaa 1.5093 ilaa 95 ayaad dhihi kartaa okay brokerkaaga ayaad tegaysaa brokerkaaga markii aad tagto euro USD waa kana waxaad dhihi kartaa sell ama buy oo hadda qiimaha new order ayaa leedahay euro USD markaad gasho 1.1242 iyo 1.1244 qiimaha marka market execution ayuu ku saaran yahay oo micnaheedu tahay market order hadda ayaad buy garan kartaa ama sell garan kartaa haddii buy aad taabato stop loss ayaad gelinaysaa haddii aad buy taabato micnaheedu kan ayuu kaaga bilaabaya numberkan haddii sell aad taabatona numberkan ayuu kaaga bilaabi doonaa hadduu ay sidaas weeyaan euro USD market executionka sell limitka isagana waxaad u isticmaali kartaa haddii aan fiirno eurocad wuxuu soo marayaa 1.5037 sell limitka uu kaaga furi doono waa kana maadaama sell dhankaan bidix ay tahay 1.sell by market 1.5032 micnaheedu ay tahay bending order ayaad dooranaysaa waxaad ka dooranaysaa sell limit oo qiimo aad meel sare aad ku sugi doonto kadib priceka ayaad gelinaysaa aad ku sugaysid oo micnaheedu ay tahay 1.5093 iska leh ama 90 then stop loss ayaad gelinaysaa oo qaybta sare ayaad dhiganaysaa 1.5151
34 then place ayaad leedahay lodkaaga ama volume-kaagina waad ku rajis garanaysaa oo aad rabto intaad suuq aad rabto inaad ku gasho quwadaada then place ayaad leedahay automatically wuu furi doonaa qiimaha okay selling successful waxaa leedahay okay haddaad ka furaya haddoo waxaa kaloo ka mid ah oo aan rabnaa inaan fiirino sell limit waa kaya buy limit inta ayaad u dhiganaysaa same thing isaga ayaad gelaysaa eurocard markaad gasho vending order buy limit ayaad oranaysaa then waxaad gelinaysaa qaybtan hoose oo ku beegan meeshaan la yidhaahdo 1.49 ama inta oo kale 1.5015 maadaama aad ka rabto inuu qiimaha kor sii aado meeshii aad adiga markaas analyse-ka aad u hubtid inuu qiimaha ka laaban karo ama aad signal aad ku hesho hana ku wareerin sidaas ayaa loo isticmaalaa kadib qiimaha uu imaan doono inuu kuu furi doono haddii uu soo gaaro weyaan kadib ama khasaaro ayay ku aadinayaan ama faa'iida ayay kusoo aadin doonaa hadduu alifin insha allah waxaa kaloo ka mid ah sell stock iyo buy stock oo ayagana aad iyo aad loo isticmaalo waxaa ka mid ah crude oil hadda haddii aan fiirino waxay ku jirtaa range ayay ku jirtaa kor iyo hoos maadaama ay ku jirto waxaa dhihi kartaa haddii uu qiimaha uu hoos soo aado macnaha uu soo dhaco sell stock intiiga fur maadaama ma rabtidba inuu sellka meelaha aad ka soo gasho sell stock ayaad inta ka soo gelaysa loskaagina inta ayaad deganaysaa stop loskii take profitkana hoos sidoo kale buy stop haddii uu meeshaan ka kor maro trenkan qiimaha kor ay u socdaa buy stop waxaad iga furtaa 65.11 adigoo stop loska 64 kana meelaha aad ka soo dhigan jirto waxaan ku fiirin pound ayaan ku fiirinaa I think pound waxaad aragtaa in range badan uu ku jiray qiimaha meeshaan uu wax yar uu kasoo hoos dhacay markii la fiiriyo wax yar fake break out weya 9300 9260 pips dan waxaad aragtaa within 4 hours inuu qiimaha ku okay so marka waxaad samayn kartaa inta ayaad dhehaysaa rangigan oo kale ayuu ku jiraa inta ayaad gelinaysaa 9488 ayaad gelisay buy stop dan waxaa leedahay take profit kor iyo qaad oo micnaheedu ay tahay 9480 oo kale haddaa ka gasho ama 90 then waxaad haysataa ku dhawaad 70 points oo profit ah iyo ka badan intana khasaaro ayuu kaga soo saari lahay maadaama sell stop aad ku gashay oo fake break out wax yidhaahdo uu sameeyey isagana waa kasoo hadli doona so marka intaas weeyaan isagana waa ku seed garayn karta oo waxaad dhigi kartaa crude oilka for example haddii aan oilka aan fiirino oil ayaa dhigi kartaa vending order ay gelinaysaa maadaama waxaa la soo gaaraysaa sell stop 62 69 oo kale stop losskiina waxaad kor ayaad ka dhigaysaa kadib price ayaa leedahay volume-ka adigoo iska hubinaya intaas weeyaan hadduu alidmo insha allahu tacaala casharkeeni maanta intaas ayaan kusoo gebgabeynaya waad ku mahadsan tahay daawashada videoga asalaamu calaykum